maamulka degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir oo ka jawaabaya cabashada shacabka ku nool waaxda barwaaqo ee degmadaasi ayaa waxaa maanta ay dib u bilaabeen dhismaha wado interlog oo dhinaca dambe ka marta xarunta waaxda barwaaqo taasi oo cabasho ay ka timaaday boosaneer laga dhisay wadadaasi oo shacabka qaarkood ay cabasho u soo gudbiyeen maamulka degmadaasi ku aadan in xilliyada roobabka ay biyuhu ku soo hoori doonaan wadadaasi waxaana maanta lagu bilaabay dib u dhis wax looga qabanayo cabashada ku aadan arrintaasi gudoomiyaha maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenada iyo xogayaha degmada iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah hay'adaha amniga ee degmadaasi ayaa ka soo qayb galay maanta dib u dhis lagu bilaabay xarunta cabashadu ay ka timaaday ee waaxda barwaaqo ee degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho mid ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ku nool xaafadda barwaaqo ayaa waxa uu warbaahinta qaranka u faahfaahiyay sida ay wax u dhaceen iyo sidoo kale cabashada markii hore ay qabeen iyo tallaabada maamulku uu qaaday aragtida ay ka qabaan ka mahad celinaynaa gurmadka ama shaqada ay nala qabanayaan gudoomiyaha degmada Wardhigley iyo mas'uuliyiinta kale oo degmada ka socdaan oo doonayaan sida aanu u doonayno inaanu u hagaajino labadan jid bilicda xaafaddan u hagaajino aad baan uga mahad celinaa tan labaad wadadan muddo badan bay taagneed waxayna u taagneed isafgarad la'aan ka jirtay jidkan dariska noo iyo jidkan hadda la samaynayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada warta nabadda injineer Saalax Xiirey iyo gudoomiyaha maamulka degmadaasi Maamo Zainab Xaabsi ayaa saxaafadda u sharaxay shaqada maanta la qabanayo iyo muhiimadda cabashadii shacabku ay soo gudbiyeen waxyaabihii ay ka qabteen mahadle sidaad arkaysaan waxaa hareerahayga taagan maamulkii degmada oo aan kala maqnayn iyo odayaashii deegaanka odayaal metelaya sidoo kale waxaad arkaysaa in shaqo ka socoto meesha aan taagannahay waxaan taagannahay waaxda barwaaqo xaafadda furayaasha horey waxaa u jirtay wado aan muddo wadnay arrimo jira awgood ayay hakad u gashay maanta ayaan dib u bilownay oo maamulkii oo dhan oo u taagan yahay sidaad arkaysaan in la hirgeliyo wadadan wadooyin badan aan degmada ka wadnay waxaan rabnaa tanna inaan sidoo kale u dhamaystirno oo qurxino caqabadaha ay u istaagtay markii hore waxay ahayd labada wado oo wadada furayaasha iyo wadadan hadda aan dhisayno oo aan dhishanshahoodu aynan isla sinayn ama ay kala sareeyeen marka in la isla simo ayaa loo baahday caqabad kale waxaa jirtay qof muwaadin ayaa wuxuu ka dhistay wadada boosaneerkii waxay naqatay in maxaa la yiraahdaa maadaama uu kor soo jiray oo markii hore aan laga taxadirin in hoos loo fogeeyo in mar kale la simo dayna qolad gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo xogayihii degmada iyo saraakiisha amniga intoodii badan waxaana sidoo kale noo wehelinaya injineeradii halkan ka shaqeynayay odayaashii dhaqanka xaafadda oo ayagana maanta halkan nagu wehelinaya sababta aan u nimid halkaana waxa ay tahay in aan ka qayb qaadano tusinana shacabkeena shaqo waqti badan taagneed oo ay maxaa la yiraahdaa caqabad yar oo ka timid annagoo tixgelinayna shacabka cabashadooda loo istaajiyay maamulka sare ee gobolka Banaadirna ay baaritaano badan markii ay sameeyeen ayagoo kaashanaya waaxda howlaha guud si gaar ahna waaxda qorsheynta marka ay soo saareen injineero khubaro u ah shaqada halkan ka socota kuwaasoo dharaandhiriyay caqabadaha iyo qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo wadadan naqshad wanaagsan naga soo diyaariyay taa oo la mid ah midii hore ee injineerada ay soo saareen wadana waa naga dambaysaa wadana waa naga horeysaa waxay labadaba dhinacyada ka kala maraan furayaasha sarta dheer furayaasha labadeeda dhinac waaye waxaana isku xiri doontaa guud ahaan xaafadan si isku weer ah annagoona qorshaheenu uu yahay guud ahaan waaxdan inay noqoto waax wada interlog ah waxa kaliya oo caqabada ay ahaydna waxay tahay horey shaqadan markii la qabanayay halkan waxaa laga dhigay meel taag ah laga dhigay meesha gunaanadkeeda ahayd shaqadan ka xaafadda qoys kamid ah ay boosaneer halkan ka qotaan ayadoo ka horeysay awaamirtii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu soo saaray laguna mamnuucay in jidadka la qodo boosaneeradana laga qodo si gaar ah oo shakhsiyan loo isticmaalo
waxay taa caqabad ku noqotay shaqadii socotay falilaahi alxamdu maanta waa shaqadii dib ay u bilaabatay ayagoo maamulka gobolka Banaadir inugu wargeliyeen in design-ka iyo shaqada injineerada ayagu ay kor joogteen iyo shaqada ay u xil saaran yihiin technical-keedana injineerada dhisay shaqadaas ay mas'uuliyad gaar ah ay leeyihiin shacabkeena waxa leenahay waxa wanaagsan quruxda ah bilicda ah shalay garabka ay ku siineenay guri walba iyo xaafad walba garab waa lagu qaar ka mid ah shacabka ku nool waaxda barwaaqo ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay dadaalada uu wada maamulka degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho oo ka jawaabaya cabashada shacabkaasi dib u dhisna ku bilaabay goobo hore loo dhisay oo hadda cabasho laga soo gudbiyay.